إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaan jecelahay maanta inaan halkan tacsi murugale uga diro qoyska qaraabada iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaan ba geeriyo ku timi Chief Caaqil Axmed Cabdigaas Awke oo ku geeriyooday degmada Yogori maanta. waxaan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u weydiinayaa naxariistiisa iyo jannooyinkiisa. waxaan leeyahay Ilaahay اللهم اغفر له وعافه واعف عنه. أحمد عبدقاس wuxuu ahaa sida aan filayo caaqilka ugu weyn maanta uqaasha nool ee xil hayay ee Soomaaliyeed meel kasta ha joogeen. muddo ka badan 70 sanadood buu ahaa chief caaqil isagoo oo ka dhaxlay caaqilnimada aabihii Cabdigaas Awke. muddadaas oo xilliga isticmaalka iyo xilligii dawladihii kala dambeeyay ee Soomaalida intaba uu ka soo shaqeeyay. runtiina uu ahaa nin leh miisaan ama tilmaamo badan oo dadka hogaamiyaasha ay leeyihiin. nin aad aftahan u ah, nin xaajo qaad ah, nin garasho leh, nin runtii dhiiran oo go'aamadiisa iyo taladiisa ku dhiiran buu ahaa. waxaan Ilaahay u weydiinayaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo. waxaan Ilaahay u weydiinayaa inuu samir iyo iimaan ka siiyo intii uu ka tegay. waxaan Ilaahay u weydiinayaa ummadda uu ka baxay inuu ciwad khayr qaba oo halkiisii u gasha oo Ilaahay ka siiyo. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun.